Waad salaamantihiin. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay saan horey idinkugu sheegnay sida loo sameeyo Facebook page adigoo isticmaalaya mobilkaaga Android-ka. Hadda ka hor waxaan soo dhigay video sida loo sameysto Facebook account. Maanta waxaan kugu tusi doonaa qaabka loo sameeyo Facebook page. Ku soo dhawaada muuqaalka asigoo dhammaystiran. Markii aad u baahan tahay inaad Facebook page sameysato, marka hore waa inaad haysataa Facebook account, kadib ayaad furan kartaa page. Marka habka aad u furan lahayd ayaan maanta rabaa inaan kugu tuso adiga. Marka hore waxaad sameynaysaa applicationka Facebook ayaad soo kacsanaysaa. Applicationka waa kana hortiina ka muuqda. Qaybtaas saddexda dhibcood ayaad tagaysaa markaasi. Markii aad meesha imaado waad soo soconaysaa marka calaamadan qaybta pageska ayaad ku dhufanaysaa. Markii aad sidaad ku dhufato hadda waxaad u jeedaa create liked pages invitations inaad u jeedo. Create ayaad ka dooranaysaa marka. Markii aad sameyso waxaad leedahay get started. Page name ayaad gelinaysaa marka adiga waxaad u baahan tahay ayaad gashanaysaa. Marka page name markii aan gelino next ayaan leenahay. Next markii aan dhahno page-ka category-giisa ayaan gelinaynaa. Waxaan leenahay personal blog. Adiga waxaad u baahan tahay ayaad gashanaysaa. Next ayaan ku sii dhufanaynaa marka website ma leedahay ayuu yiri. I don't have a website ayaad leedahay. Kadibna next ayaad ku dhufanaysaa. Profile picture iyo add cover photo ayuu yiri. Marka skip ayaan leeyahay hadda. Publish page ayaan leeyahay. Marka hadda loading ayuu leeyahay. Page-ka ayaa la sameynayaa. Waa kana waad u jeedaa page-kas waana loo sameeyay marka waa diyaar. Waxaad sameynaysaa marka Facebook markuu sidaan yahay page-ka add a button ayaad leedahay. Editing ayaad ku sameynaysaa haddii aad u baahan tahay. Button-ka waxaad u baahan tahay ayaad ka dhigaysaa choose a button ayuu yiri. Call now ayaad dhahaysaa haddii aad rabto. Adiga midkaad u baahan tahay ayaad ka dooranaysaa. Call now haddii aad dhahdo lambar ayuu ku weydiinayaa. Lambar ayaad gelinaysaa marka. Lambarka markii aad geliso kadibna create ayaad leedahay. Asiga ayaa sameynaya marka. Button ayuu hadda inoogu dari doonaa haddii uu alla idmo. Haddii aad u baahan tahay post waad dhigi kartaa. Sidoo kale waxaad sameyn kartaa hadda waa kana call now ayuu inoogu daray button-ka aad u jeedaan. Haddii aad u baahan tahay invite friends ayaad leedahay. All asxaabta kugu jirta dhan ayaad u diri kartaa si ay like kugu saaraan. Select all ayaad dooranaysaa hal mar. Xigtooda ayaad u diraysaa marka. Waan ka laabanaynaa hadda haddii aad u baahan tahay in WhatsApp ayaad ugu diraysaa si aad ugu casuumto asxaabtaada. WhatsApp-ka ayaad ugu diraysaa marka. waad u jeedaa hadda page-ku waan sameynaa. Hadda kaliya waxay naga dhiman waa in aan profile-ka sawir saarno iyo cover photo in aan ku darno. Okay, marka waxaan sameynaynaa view as ayaan leenahay. Markii aan sidaan sameyno edit page ayaad kor ka dooranaysaa marka. Page header aad u jeedo page info ayaan ka dooranaynaa marka. Waa kana hadda website description ayaad ku dari kartaa haddii aad u baahan tahay. Waxaad leedahay ku soo dhawow page-kayga aan Facebook ku leeyahay ayaad dhahaysaa marka. Page-kayga aan Facebook ku leeyahay ayaad leedahay. Markii aad dhahdo save ayaad dhahaysaa marka. Hadda si toos description ayuu kugu darayaa. Haddii aad u baahan tahay add phone number ayaad leedahay. Sidoo kale email address. Haddii aad u baahan tahay location street address-kaaga. Marka waxyaabo badan ayuu leeyahay ayaad ku dari kartaa. Maanta muuqaalkeena halahaas ayuu ku egyahay. Video-gan haddii aad ka heshay like saar. Sidoo kale u share garay asxaabtaada. muuqaalka xiga insha Allah wuxuu noqon doonaa sida loo maamulo
page sida loo maamulo Facebook page adigoo isticmaalaya isla Android-kaaga oo mobile-kaaga ah. muuqaal kaloo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.